bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti haboon saaxiibada inagu xiran ow halkaad inaga daawanaysaan waa runsheeg t v waa barta aynu youtube-ka ku leenahay saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid a rooble oo amray in xilka laga qaaday jenaraal oduwaa yuusuf raage iyo madaxweyne farmaajo oo arrintaasi ka hor yimid suuqa bakaaraha oo maanta u xiran kooxda daacish iyo sarkaal ka tirsan ciidamada puntland oo lagu dilay magaalada boosaaso qodobadaasi qodobo kale ayaan saaxiibada inugu xiran oo idiin haynaa fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis la idinkaga codsanayna inaad subscribe noo soo hadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa isku dayay inuu xilka ka qaado jenaraal oduwaa yuusuf raage sidoo kale arrintaasi waxaa ka horyimid madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa ah khilaaf aad u xoog badan oo weli ka dhex taagan madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble weli waxaa socota doorashada golaha shacabka midaas oo cabasho weyn ka muujinayaan qaar ka mida musharaxiinta xog hoose oo soo baxaysa ayaa sheegaysa in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo aad uga carooday in ciidanka loo daabulo magaalada beledweyn injineer rooble ayaa isaga oo taas ka duulaya waxa uu doonayaa inuu xilka qaadis ku sameeyo saraakiisha ciidamada xooga dalka qaarkood sida ay xogtu tilmaamayso walow aysan taasi u rumoobayn maadaama madaxweyne farmaajo uu kasoo horjeedo xubno ka agdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqada laga joojiyey ayaa xaqiijinaya inay jirto wadatashiyo uu la sameynaya wasiirka koowaad ee xukuumadda ku aadan arrinta ciidanka la geeyay beledweyne iyo jawaabta mudan ee lagu dhaqaaqi karo la taliyayaashiisa gaarka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa waxay kulan gaara ka yeesheen iyadoo injineer maxamed xuseen rooble ay u badan tahay inuu xilka ka qaado sida ay dadka qaar soo tabinayaan walow jenaraal oduwaa yuusuf raage uusan amarkaasi bixin ciidamada loogu daadguraynayo magaalada beledweyn dhinaca kale ciidankan oo markii hore u codsaday cali guudlaawe in la geeyo magaalada beledweyn ayaa maanta halkaasi laga dejiyey ciidankan ayaa isugu jiray gorgor iyo haramacad iyadoo la filayo amaba la fulinayo codsigii madaxweynaha hirshabeelle ayaa madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada oo halkaasi ka dejiyey boqolaal ka tirsan ciidamada xooga dalka madaxweyne farmaajo oo mas-uul ka ah ammaanka guud ee dalka ayaa maanta awoodiisa tusiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kadib markii uu halkaasi saaka ka dejiyey ciidan aad u hubaysan kuwaasoo la filayay inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada beledweyn maadaama maalmihii u dambeeyay ay halkaasi ka socdeen mudaharaadyo ay soo abaabulayeen shakhsiyaad aan rabin inay beledweyn ka dhacdo doorashada golaha shacabka ila ka tirsan villa Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in ciidankan la geeyay magaalada beledweyn amarkiisa uu bixiyay madaxweyne farmaajo maadaama uu yahay qofka ugu sarreeya loogana dambeeyo amniga dalka midaas oo meesha ka saaraysa damciisa rooble ee xilka looga qaadayo oduwaa iyo biixi maadaama aysan iyagu amarka bixin sidoo kale dhowaan waxaa halkaasi la filayaa in uu ka dego fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo waxaana la filayaa inuu halkaasi kasoo qaadan doono kursiga xildhibaannimo ee reerkiisa sidoo kale haramacad iyo gorgor oo halkaasi laga dejiyey ayaa ka shaqayn doona sidii halkaasi uga dhici lahayd doorashada kuraasta golaha shacabka ee halkaasi taalla waa beledweyne qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho qaybo badan ayaa maanta xiran sababatuna waa in kooxda hubaysan ee daacish amar canshuur bixin ay duldhigtay ganacsatada suuqa bakaaraha sida ay noo xaqiijiyeen ganacsatada waxaa xiran inta badan dukaamida iibiya qalabka dhismaha ee ku fidsan wadada labaad ee suuqa bakaaraha ama sida dadka badi ay u yaqaanaan jidmaryaxaanka waxaa kaloo xiran inta badan dukaamada iibiya alaabta bagaashka iyo qaybo ka mid ah kuwa iibiya daawada kooxdan la yiraahdo daacish ayaa maalmihii lasoo dhaafay culays xoog leh saartay ganacsatada magaalada muqdisho si gaar ah kuwa suuqa bakaaraha sida ay inoo xaqiijiyeen ilaa 4 qof oo kala duwan oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee suuqa bakaaraha dhowaan waxaa la sheegay in kooxdu qarxisay meel u dhow shirkadda Moomin Group ujeedkooduna waxa uu ahaa isfurta oo lacagta bixiya ganacsatadan ayaa la sheegay in ay isku waafaqi waayeen lacag bixinta waxaana saaka badankood qaateen go'aanka ah in ganacsigooda ama goobahooda ganacsiga ay xiraan waxay sheegeen ganacsatada aan la hadalnay in aysan bixin karin lacagta ay kooxdu rabto maadaama sida caadiga ah ay bixiyaan 2 canshuur oo kala duwan
oo midna ay ka qaado dowladda mida kalena ay ka qaado al-shabaab. tan waa canshuurtii saddexaad oo laga rabo ganacsatada magaalada muqdisho. dhowr qof oo arrintaasi ka hor yimid ayaa la sheegay in ay beegsatay kooxda. qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa la sheegay in ay mar soo jeediyeen inay kooxdan iska difaacaan, laakiin waa la isku raaci waayey. tusaale waxaana loo siiyey shirkadaha iibiya qalabka elektarooniga, kuwaas oo markii hore isdifaac isku raaci waayey ayaa go'aansaday inay lacagta iska bixiyaan, sidaasna ay hadda ku shaqaystaan. kol hore waxaa la sheegay in kooxda daacish xirtay qaybo ka mid ah suuqa raashinka, laakiin markii dambe waxaa la sheegay in ganacsatadii in ay iska bixiyeen lacagtii ay kooxdu rabtay, balse iyaguna qiimaha maciishada ayay kor u qaadeen. tallaabadaasi kadib maciishada ayaa la sheegay inay kor u kacday 10% muddooyinkii lasoo dhaafay. kooxda muddo ka hor ayay sidaanoo kale u xoogeysatay, balse waxay isku dhaceen kooxda kale ee al-shabaab, kuwa ugu dambeyn ka hor istaagay qorshaha, balse hadda waa ay soo rogaal celiyeen. sanadka cusub amaba sanadku waa cusub yahay, lacagta ganacsatada laga rabana waa mid sanadeed. oo qof ka mid ah dadka aan la hadalnay oo aan weydiinay qiyaas kooxdu waxa ay rabto, waxa uu inoo sheegay amaba dukaankii ay saaran tahay alaab qiimaheedu dhan yahay 60 ilaa 70 kun oo dollar inay kooxdu ka rabto wax ku dhow 10 kun oo dollar, taasoo uu sheegay in ay adag tahay inay bixiyaan. qaar ka mid ah ganacsatadu waxay sheegeen inay ka fakarayaan inay dhinacyadii hore ee canshuurta uga qaadi jireen dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab inay la fariistaan oo ay kala doodaan inay canshuurtooda dhimaan si ay kooxda isaga badbaadiyaan, ama inay iyagu keenaan xal u badbaadinaya naftooda iyo maalkooda. dadka caasimada ku nool dhinac walba waa ay ka dhiban yihiin hanti, naf iyo mustaqbal midna uma dhaqna, mana jirto aragti dhexdooda taallo oo badbaadin karta, kumana mashquulsana intaasi in la helo gacan dowladeed oo arintani ku howlan ma jirto. waxaana maanta la kala dooransiinayaa dadka reer muqdisho inay 3 canshuur bixiyaan ama inay shaqo la'aan ahaadaan. waxaa la eegayaa sida laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya jawaab ay uga bixin doonaan arrinta maanta taagan. qodobada kale saaxiib yaalidiinahana waxaa ka mid ah waxaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Puntland lagu dilay taliyihii hore ee kontaroolka Boosaaso Barkhad Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Guduudane, iyadoo oo dadkii ka dambeeyay dilkaasi ay goobta ka baxsadeen. goob joogayaal ayaa waxay sheegeen rag ku hubeysan bastoolada ay Barkhad Maxamed Jaamac ku dileen xilli uu ku sugnaa wada aad u mashquul ah, shacab badan ay joogaan gashana suuqa magaalada Boosaaso, iyadoo oo goobta uu dilku ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan booliiska Puntland, balse aysan ku guuleysan soo qabashada dilka dadkii ka dambeeyay. sarkaal Guduudane oo darajadiisu ahayd kabtan ayaa ciidamada laga ruqseeyay sanad ka hor markii ciidamada iyo saraakiisha Puntland lagu xareeyay kuliyadda booliiska ee Carmo iyo Xorgoble, sida ay xaqiijiyeen dad marxuumka la soo shaqeeyay. waxaana sababta ruqsadda lagu sheegay in siyaasadda xukuumadda madaxweyne Dani ay tahay askarigii ama sarkaalkii aan kuliyadaasi gelin la ruqsaynayo, isagoo diiday inuu kuliyadaasi oo ciidamada iyo saraakiisha lagu xareeyay sanad ka hor uu galo. allah u naxariistee Barkhad Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Guduudane ayaa 2 jeer oo hore soo noqday taliyaha kontaroolka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. waa hagaag saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warka aad ka daawanaysaa Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gamareelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.